halkani qofna kuma dhaco inuu booqdo. Waa meesha ugu cabsida badan ee dunida. Waxay ku taalaa dalka Mareykanka. Waana goobta la sheego inay ku nool yihiin alien. Waa waxaan bini aadan ahayn oo aan xayawaan ahayn. Muuqaalo dhif iyo naadir ah oo laga helay goobtan ayaa muujinaya muuqaalka cabsida badan ee alien. Marunba in alien ay ka yimaadaan samada ama meerayaasha kale. Haddaba sida uu Quraanku uga hadlay kumanaan sano ka hor iyo goobtan halista ah ayaan warbixintan ku eegi doonaa. Haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir bogga muuqaalkana laag saar oo sii sheer garee. Halkani waa goobta cabsida badan ee loo yaqaan Area 51. Waxay ku taalaa gobolka Nevada ee dalka Mareykanka. Meeshani waxay ahayd goob military oo ay lahaayeen militariga Mareykanka, sidoo kalena u ahayd kayd hub oo qarsoodi ah oo aad loo ilaaliyo. Laakiin xilliyadii dambe waxaa ka soo baxaya warar cajab geliyay dadweynaha Mareykanka ku nool. Area 51 waxay noqotay goob cabsi badan oo tagisteedan laga baqo. Waxa lagu arkayaa aliens. Alien waa noole samada ka yimaada oo ku nool meerayaal kale sida dayaxa iyo Mars oo kale. Noolahan ayaa shabaha ama u muuqaal eg bini aadamka, laakiin ma aha bini aadan, mana aha xayawaan kale. Waxa loo yaqaan af Ingiriisiga aliens, inkastoo weli uusan jirin magac loogu yeeray afka Soomaaliga. Area 51 waxaa sanadadii dambe ay noqotay halka ugu cabsida badan Mareykanka. Waxay hoy u noqotay aliens. Goob lama tagaan ah oo aan xataa diyaaradaha dul marin ayaa lagu sheegayaa inay tahay. Sida marar badan warbaahinta laga sheegayna, waxaa lagu arkay baraha bulshada muuqaalo dhif iyo naadir ah oo muujinaya walxaha loo yaqaan aliens oo ku sugan halkan oo ah Area 51. Si kastaba, dad badan waxa ay weli ku wareersan yihiin aliens. Laakiin markaan diinteena suuban ee Islaamka ku eegno, goor hore ayay ka hadashay aliens sida ay qabaan qaar ka mid ah culimada. Waxaa Quraanka lagu sheegay nooleyaal abuurista Alle ka mid ah, kuwaas oo oogada sare ee dhulka ku nool ama ka yimaada oo aan ahayn baalaleyda iyo kuwa badaha ku jira. Waa sida Quraanku ku tilmaamay ereyga daaba. Waxay leedahay aayaddu: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. intaasi kadib, gobolka Nevada ee dalka Mareykanka, gaar ahaan Area 51 oo ahaan jirtay xarun militariga Mareykanka, gaar ahaan ciidanka cirka ee Mareykanka, ayaa lagu waramayaa inay tahay hadda xarunta alien. Sida marar badan lagu arkay muuqaalada laga soo duubay, halkan waxay noqotay meelaha ugu cabsida badan oo aan loo ogoleen inay qofi booqato. Waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid ah in goobtan Area 51 ay si joogto ah ugu soo degaan waxyaabo aan la garanayn oo kor ka imaanaya, waana sababta ay u noqotay hadalhaynta bulshada. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, xilli la weydiiyey waxyaalahan, qosol ayuu kaga gaabsaday, halka madaxweynihii hore ee Mareykanka Obama uu qiray inay jiraan walxaan aliens loogu yeeray. Haddaba adigu aragtidaada hoos nagula wadaag muuqaalkana laag saar oo sii sheer garee.